Ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xogaha cusub ee ku saabsan Putin. Ku soo dhawaada. Waa kuma Vladimir Putin? Vladimir Putin magaciisa buuxa waxaa la yiraahdaa Vladimirovich Putin. Wuxuu dhashay Oktoobar 7, 1952 wuxuuna ku dhashay Leningrad, Russia ama USSR. Haddana magaaladan waxaa loo yaqaanaa St. Petersburg, Russia. Wuxuu soo noqday sarkaal sirdoon iyo siyaasi, isagoo soo noqday madaxweynaha Ruushka 1999 ilaa 2008 2012 ilaa hadda. Sidoo kale wuxuu soo noqday ra'iisul wasaaraha Ruushka 1999 2008 ilaa 2012. Putin wuxuu bartay sharciga kaasoo uu qalin jebiyay jaamacadda Leningrad State University. Putin macalinkiisii jaamacadda wuxuu ahaa Anatoly Sobchak, kaasoo uu ka mid ahaa hormuudka isbedel doonka xilligii Perestroika. Putin wuxuu soo noqday sarkaal sirdoon oo kasoo shaqeeyay gudaha iyo dibadda, isagoo u soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka ee Ruushka ee KGB la oran jiray, wuxuuna ka shaqeynayay muddo 15 sano ah. 1990 ayuu howlgab ka noqday howshii sirdoonnimo ee KGB-da Ruushka uu hayay shaqada sirdoonnimada. Wuxuu ka gaaray darajada Lieutenant Colonel, kadibna wuxuu ku soo laabtay waddankiisii Ruushka wuxuuna ka shaqo bilaabay jaamacadda Leningrad State University iyadoo loo dhiibay xilka xiriirka arrimaha dibadda ee jaamacadda. Wax yar kadib, Putin wuxuu taliye u noqday Sobchak, macalinkiisii hore kaasoo ahaa maayarka ama duqa magaalada St. Petersburg oo si dimuqraadi ah loo soo doortay. Putin wuxuu kasbaday kalsoonidii Anatoly, taasoo ka dhigtay Putin in loo garto qof karti leh oo wax qaban kara. Sidaas darteed, 1994 waxaa loo dallacsiiyay ku-xigeenka duqa magaalada St. Petersburg. 1996 Putin wuxuu u dhaqaaqay Moscow, taasoo uu ka mid noqday shaqaalaha madaxtooyada ee Ruushka, waxaana loo magacaabay ama laga dhigay inuu ku-xigeen u noqdo Pavel Borodin oo ahaa madaxa shaqaalaha ee Kremlin-ka ama madaxtooyada Ruushka. Putin wuxuu si dhow ula xirtay Anatoly oo Leningrader ahaa, taasoo Putin fursad u siisay in uu jagooyin sarsare u qabto. Juulaay 1998 madaxweynaha Ruushka ee xilligaasi Boris Yeltsin ayaa ka dhigay Putin inuu noqdo agaasimaha adeegga amniga federaalka waa Federal Security Service, waa hay'addii sirdoonka KGB-da lagu bedelay ee Ruushka. Muddo gaaban kadib wuxuu noqday xogayaha golaha amniga ee saameynta badan leh. Madaxweyne Yeltsin oo raadinayay qof isaga hawsha ka dhaxla ayaa Putin u magacaabay ra'iisul wasaare 1999. Inkastoo Putin aan si fiican loo garanin, haddana fikirka ay shacabka Ruushka Putin ka aaminsan yihiin wuxuu ahaa mid aad u hooseeya. Haddana iyadoo sidaatay, madaxweyne Yeltsin ayaa ku dhawaaqay abaabul howlgal militari oo lagu qaadayo Chechnya, balse midkaasi muusan noqon mid lagu guuleysto oo wuxuu noqday howlgal madax xanuunka ku sii rida ama sii xumeeya dabeecad xumida Yeltsin. Kadib, shacabka Ruushka ayaa bogaaday dabeecadda wanaagsan ee Putin isagoo uu cadaadis saaran yahay. Putin ayaa taageero doorasho helay iyo midnimo, taasoo xaqiijisay guushiisii doorashada baarlamaanka Diseembar. Haddaba aan eegno Putin xilligii koowaad iyo xilligii labaad ee madaxweynaha Ruushka uu ahaa ama uu noqday. Diseembar 31, 1999 Yeltsin ayaa si lama filaan ah iscasilaadiisii ugu dhawaaqay, kadibna u magacaabay Putin inuu sii noqdo ku-siisimaha madaxweynaha. Kadib doorashadii 2000 March la qabtay, boqolkiiba 53 waxaa si fudud ugu guuleystay Putin. Ka madaxweyne ahaan, Putin wuxuu sheegay in uu musuqmaasuqa la dagaalami doono iyo in uu abuuri doono suuq dhaqaale oo adag oo xor ah. Putin wuxuu si fudud u hantay oo gacanta ugu dhigay 89 gobol iyo jamhuuriyadood oo Ruushka ka tirsanaa, isagoo u qaybiyay 7 degmo oo cusub oo federaal ah oo dhammaan midba hoos imaanayso, taasoo degmo walba uu hogaaminayo wakiil uu soo magacaabay asaga ama madaxweynaha. Sidoo kale wuxuu laalay ama uu meesha ka saaray xuquuqaha maamulada gobollada ay u lahaayeen inay ka mid noqdaan golaha federeeshinka ama aqalka sare ee baarlamaanka Ruushka. Putin wuxuu yareeyay awoodda warbaahinta madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa maalgeliya warbaahinta madaxa bannaan, iyadoo la xiray warbaahinno, TV-yo, radio stationno iyo wargeysyo kala duwan. Sidoo kale waxaa dacwad lagu soo oogay suxufiyiinta warbaahinta gaarka ah. Gobolka Chechnya
balse gobolka Chechnya ayuu kala kulmay xaalad adag oo halis ah, taasoo kooxo hubeysan ee weerar argagixis ku soo qaadeen Moscow iyo sidoo kale dagaallo ku dhufo ka dhaqaaq ah ka soo qaadaya buuraha kadibna beegsanaya ciidamada Ruushka. Sanadkii 2002 Putin ayaa soo saaray qaraar olole dagaal ah, balse waxyeeladiisa unbaa sii badatay. Putin ayaa si adag uga soo horjeestay madaxweyne George W. Bush Mareykanka 2001dii go-aankiisii ahaa in la mamnuuco heshiiskii 1972 ee lidka gantaalada balaastikada, iyadoo looga jawaabayo weerarka Sebtembar 11 ee Mareykanka lala beegsaday 2001dii. Putin wuxuu ballan qaaday in Ruushka caawimaad uu ka geysanayo iskaashina la sameynayo ololaha Mareykanka uu hogaaminayo ee ka dhanka argagixisada, iyo in uu oggolaaday in la isticmaalo hawada waddankiisa si loo gaarsiiyo gargaarka bini'aadanimo iyo in uu ka caawinayo howlgallada raadinta iyo badbaadinta. Ha ahaatee, Putin ayaa markii dambe wuxuu ku biiray 2002 ilaa 2003 Chancellor-ka Jarmalka ee Gerhard Schröder la yiraahdo iyo madaxweynihii Faransiiska ee xilligaasi Jacques Chirac oo ka soo horjeestay qorshaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee ahaa in awood loo isticmaalo dowladda Saddam Hussein ee Ciraaq. La soco qaybaha kale ee soo socda ee Putin waa kuma.